Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii aynu isla garanay qiimaha caafimaad ee caanuhu inoo leeyihiin sidoo kalena haddaynu isla garanay qiimaha caafimaad ee malabku inoo leeyahay aan ku xasuusiya inaad koob caana iyo malab isku darto kadibna aad cabto xilliga hurdada ka hor isla markaana aan ku xasuusiya 11 faa'iido oo ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee ay jidhka u leeyihiin caanaha iyo malabka la isku daray ee wakhtigaasi la isticmaalo kuwaas oo kala ah kow waxay dejiyaan dhammaanba neerfayaasha jidhka waxaana lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee ay cabaan dadka ka cabanaya hurdo-xumadu laba waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan marka laga hadlayo caafimaad qabka iyo shaqada dheefshiidka waxaanay caloosha u diidaan inay yeelato subag ama xaydh badan saddex waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee jidhka ka difaaca burooyinka iyo unugyada kansarka gaar ahaana kansarka ku dhaca caloosha iyo lafaha afar waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan marka laga hadlayo caafimaad qabka iyo shaqada lafaha shan waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan marka laga hadlayo caafimaad qabka iyo muuqaalka guud ee maqaarka sare ee jidhka lix waana cabitaanka ugu wanaagsan ee ay cabaan dadka ka cabanaya cunto xumada ama dadka aan cuntada u qaadan sidii loogu talagalay toddoba waxa lagu sheegay shayga ugu wanaagsan ee ka hortaga inuu bato ay sii dha calooshu xadna waxay u yeelaan kana hortagaan xanuunka gaastariga nooc kasta uu yahayba sideed waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan ee kor u qaada xasuusta iyo caafimaad qabka maskaxda sagaal waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan marka laga hadlayo caafimaad qabka iyo shaqada wadnaha iyo isu socodka guud ahaan dhiigga ee jidhka oo dhan toban waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan marka laga hadlayo habdhiska difaaca ee jidhka 11 waxa lagu sheegay cabitaanka ugu wanaagsan marka laga hadlayo caafimaad qabka hooyada uurka leh iyo ilmaha caloosha ku jiraba haddaba si aad u diyaarisay cabitaankan raac tallaabooyinka soo socda marka koowaad soo qaad koob biyo ah oo diiran mar labaadkana ku dar 3 qaado oo caanaha boodhaha ama caana geel saafi ah marka saddexaadna ku dar 2 qaado oo malab saafi ah markaa kadibna qabooji markay qaboobaan cab xilliga hurdada 30 daqiiqo ka hor mahadsanidin